xilligan haatan lagu jiro waa xilli abaara dad iyo dunyaba ay tabcaan isla taagan yihiin bulshada xoolo-dhaqatada ee haatan ku nool degmada Ceelbi nawaaxigeeda ayaa waxay la taagan yihiin xaalad abaareed iyo biyo la'aan markaasi ka jirta deegaankan Ceelbi iyadoo arrintaas ay jirto ayaa ceelashii magaalada Ceelbi gudaheeda waxaa fadhiyay labadaasi mid ka mid ah ayaa maanta gurmad waxa uu sameeyay bulshada ku nool degmada Ceelbi gobolka Sanaag ee xoolo-dhaqatada miyiga ah iyo magaaladaba shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom Soomaaliya ayaa saaka gurmad u sameysay waxayna u sameysay ceelkii dhanka waqooyi ka xigay degmada Ceelbi ee gobolka Sanaag ceelkaasoo maanta ay xooluhu si weyn uga cabayeen gobolkuna ugu dhici jiray biyo yaraanta ka jirta ceelkaasi ayaa maanta markula soo fatahay biyihii ceelkaasi markii ay shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom Soomaaliya ay maanta ceelkaasi dib u habeyn ay ku sameysay waxaana shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom Soomaaliya u mahadceliyay bulshadii ceelkaasi ku sugnayd oo xoolahooda maanta u soo aroostay kadibna markiiba ay ka fuleen oo xoolahoodii ay dib ugu ceshadeen guryahoodii iyo waliba booyadleyda markaasi biyaha ka dhaansanta ceelkaasi waana kuwa bulshada iyo Golis u mahadcelinaya الرحمن waxaanu mahad celinaynaa ilaahay baa mahad iskale laakiin shirkadda Golis iyadoo haraadnahayo ayay qayb waxay noo soo dirtay gaari wiisha gaarigaas waa noo kiciyay ceel naga fadhiyay ceel buha naga biyo yaraa waa noo kiciyay waa noo hagaajiyay waa noo kordhiyay beeb buu noo yar kordhiyay ceelkiina biyo badan baanu hadda ka helay waqtiguna waa bil adag oo waa afraad abaar baana dhulka ka jirta shirkadihii ayaa sidaa mucaawimada u keenaya dawladda waxaanu ka rajaynaynaa inay wax gurmada oo biyo dhaamisa iyadoo waqtiga adag yahay dadka la soo gaadho shirkadda maamulaheeda qaybta Ceelbi Cumar Ciise Dhaaye ayaanu mahad u jeedinaynaa isagoo abaabulka shirkadda isaga iyo shirkadu lahaayeen oo iska arkeen ceelkaas waa noo shaqaynayaa xoolihii maanta si fiican bay uga fuleen haraadkuna aad buu noo dhibaateeyay ewel waayo ceelku wuu biyo yaraaday oo biyihiisi hoos bay u tageen hadda bir baa shirkadu ku kordhisay ceelkii xoolo badan biyihii aad bay noogu kordheen dawladda dee shirkadii baa sidaa yeelaya inay gacanna siiso oo na kaalmayso gees kastaba siiba biyaha ayaanu marti uga naayoo rabnaa waxaa leeyahay dadka haraad baa haya biyuuna waa adag yihiin waqtiguna wuu adkaaday waa kul waa in nalala soo gaadhaa wax kaalmaa dawladdu waa inay gacanna siisaa dawladda Puntland waa inay gacanna siisaa saasaanu rajaynaynaa saasaanu dawladda ka rajay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim waxaanu ilaahay dadka reer baadiyaha ee xoolaha meesha ku haysta ceelkii waa naga biyo yaraaday biyo waa go'een tuubooyinkii waa ka gaabtay tuuba baa hal tibbe baa nala ku siyaadiyey gargaarkaas ilaahay ka bacdi waxaanu ka helay shirkadda Golis Cumar Ciise Dhaaye ninkaasaana yani maaragtay naga caawiyey halkaa ceelkii kaleetona waa naga fadhiyaa waa khariban yahay wax u soo dhaqaaqayana ma jiraan mas-uuliyadduna waxay saaran tahay dawladda Puntland ceelkaasu bil waa fadhiyaa xoolina waa ku dul baktiyay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo dhan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan maanta annaga oo aad u dhibaataysan kaariyoonayaasha ooman islaamka xoolaha geela adhiga dabeeraha saa isugu ogaamayna oo ceelkii naga xumaaday waxaa noo timi shirkadda Golis aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa beebabkii xumaaday way naga soo gurtay ceelkii way noo hagaajisay annagoo wada cokan baanu ka soo dareeray sidaasaanu waxaanu ugu mahad celinaynaa aad iyo aad shirkadda Golis والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رادن ومحيتي waxaa noo timi shirkadda Golis waxa weeyaan waa u mahad celinayna dad iyo dunyadii waa wada ooman waxa weeyaan macal magaaladii macal baadiyihii macalmihii iyo magaalaba loo ooman yahay marka waxaan u mahad celinaynaa shirkadda Golis. marhalam sallallahu alayhi wasallam waxaan ilaahay mahadle waxa shirkadda Golis baan u mahad celinaynaa waa oomanayn raad baan la yaabanay waqti adag baan ku jirnaa waxa weeye dad iyo dunya raad baan isla daba hoganaynay
biyihii wax buushkii waa noo yimi biyihii waana loo furay dad iyo dunya waa fulo waa liibaanay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa mahadsantihiin yar waana u mahad shirkadda golis waa u mahad celinaynaa ilaah baa mahadle marka shirkadda golis baa idin keentay wiishka miyaa maanta yadaa noo keentay iyadaa noo keentay anagu haraa dad iyo dunya saa isugu wareegayno sidaa hadda wixiiba waa fuleen dad iyo ceel magaalo iyo miyi waa wada fuleen dee waa ku barwaaqoon khayr allaha siiyo u mahad celinaynaa ilaahay khayr ha siiyo garbkooda ha galo isla sidoo kale daraawalinta booyadaha wadda ee bulshada xoolo-dhaqatada miyiga u geysa ayaa shirkadda isgaarsiinta golis telecom Soomaaliya aada ugu mahadnaqay ilaahay nooga baryay inay shirkadda isgaarsiinta golis telecom Soomaaliya ay noqoto shirkadda kaliya ee deegaankan ka shaqeysa waxayna sheegeen booylaydaasi in ay muddo 2 habeena iyo habeenba ay ku maqnaan jireen meel ceelba ka baxsan ay biyaha ay ka dooni jireen maantana ay ilbiriqsi ay ku buuxsadeen oo xoolo dhaqatada iyo magaaladaba iyo waliba booyadihii uu ceelkaasu maanta markiiba uu wada fuliyay khayraasiyo hadda laba habeen baan maqnaa ila furaanay wayga go'ay laba habeen baan taagnaa isagoo kala bartay baan iyo raawiya bule ايش اللي يقول لك ولا ولا يحبط دينا متعال انا شوف وصلت لك صوره يلا لو بخ بك ترينا انا ساعتها سويت ايام فرق لا يبقى هذا ما الحين لا خير السيده لك على البريد ناخذ الدويش كاي عيلك غاري انه هاجينايا خير عاد يا دارو بعد العين الى كعب المريض الى بابا له مامولك شركه الجوليس مرتنا انا الى خير الله سي ساسا ولا إلى ما عاد لكن قال يا بدك بعد علينا إلى خير الكسي dadkii iyadoo ku tabcaansanayeen waa la hagaajiyay beebaa lagu guray shirkadda Golis ayaa soo gurbatay iyo warshanaale anigu waxaan ka mid ahaa waka boodayda alxamdulillah soo dhaamiya 200 kilomitir biyo laga keenay jiray dadkii gawaarida soo tabcaameen hadda waa ka xulay way fuleen وادو نور نفسي isla sidoo kale shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom Soomaaliya waxa uu mahad celiyay maamulaha ceelkaasi bidixi oo isagoo gacanta ku haya isla markiina sheegay in uu booyadii uu ku buuxin karo muddo 15 daqiiqo halka uu booyada ku buuxin jiray 2 saacadood wuxuuna aad ugu malceliyay shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom Soomaaliya isagoo u maadnaqay shirkadaasi kuna bulshadana ugu baaqay in markaasi lagu daydo oo ceelasha kale la dayactiro iyo kuwa haatan fadhiyaba الرحمن الرحيم marka uu horeeyay Ilaahay baa mahadle oo halka isugu keenay nabadgeliyo iyo caafimaad isugu keenay mar labaadka waxaan u mahad celinaynaa shirkadda Golis oo ceelkii hadaan maamulihii ceelka ahay biyaha waa yaraayeen xooluhu markay isugu yimaadaan saddexda galabnimo bay xooluhu ka dareeri jireen sida qaaqada loo hayo oo biyo marna u go'ayaan marna xooluhu wareegayaan ba xooluhu isku dubaqtii jireen xooluhu halkaas maqasho ku qubi jireen darkay ku qubi jireen ilaah baa mahad iskale shirkadda Golis waxay ceelka intii naga dhinayd beeb baa naga dhinaa wiish lama hayn wiishkii bay noo keeneen waanu kordhinay biyihii waa noo bateen saacadda hadda aanu joogno waa aragtaan saddexda galabnimo xooluhu ka dareeri jireen mar hore xooluhu fuleen إلهي بانو شركة Golis إلهي بان ما هذا كلام برلمان شركة Golis بانو مدعينينا قيبت عيل به وعمر عيسى دا يتشوقه Golisنا آد بنورو شقي يسوي شركة دي سبا ويقع يعني أول مدشر به وحقوق قبطان آد بانو مدعينينا وحنو كلو كرجينينا عيالش أنت نقفر لنا إنه كلميان إنه قبطان شركة Golisنا وحكم وقتي وحي أي شيء قتي وأدي قد دوينها يوم مد قرقار كذا إن أي بلاوضي أو أي ودي أولنا ودي هديرنا ودي ومدي هلكا كفشي حولي هلكا كفلينا آد بيقول دعينيان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام maamulaha shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom Soomaaliya faraca degmada Ceelbi ee gobolka Sanaag Umar Ciise Daaya ayaa bulshadii ka soo qayb gashay munaasabadda ceelka maanta dib u habeynta lagu sameeyay ugu mahadnaqay wuxuuna fariin uga siday maamulaha guud ee dhammaan shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom Soomaaliya markaasi sida ay markaasi maanta ugu soo gurmadeen wuxuuna sheegay in shirkadda Golis Telecom Soomaaliya dadka customer-ka u ah inay markaasi wixii ay ka qaadeen dib ugu soo celin doonaan waana kan isagoo ka hadlaya arrimahaasi shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom Soomaaliya waxay bulshadeeda ugu hayso ee kaga qayb qaadan doonto xaaladda abaareed ee haatan taagan اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وددوينها دمان عيلبو معمول كشركة جوليس واي سلاميان مع علينا ووسو جيدينيان وحقبت كستا أو لسو قدبان هذا أو شركة دنك يدانا وهو بلن قادين معمول كوينا وقبانيان هورنا يقو قبان جرين هدنا وقبانيان وحينا شركة وهي لانتهي أديك ددوينها mar walbana ay u taagan tahay mar walbana wuu qabanaysaa adeega dadweynaha inay qabato shirkadu ma aha shirkad siyaasadeed shirkad ganacsi weeyaan una taagan hawsha dadweynaha inay qabtaan oo dadweynaha u shaqeeyaan waa arrimaha bulshada ay ka mid tahay arrimaha isgaarsiinta wax allaale wixii wax qabadana wuu qabanayaan shirkaduna way idin mahad celinaysaa oo sidaas aad ugu mahad celiseen bay idinkuna idinku mahad celinaysaa maamulka oo dhamina way idin salaamaya reer ceelbu iyo dhammaan adeegyada gobolka Sanaag ee ka shaqeyso ama Soomaaliyaba shirkadu sidaas ay meel walba u heegan ugu tahay oo wixii dib ah oo haysta inay la qaybsato dadka danyarta ay la qaybsato bay u taagan tahay hadda ka hor xilligiisii biyo dhaamishiyay adduunyada dhan way ka fidinaysaa waana arkaysaan midhaheediina hadda waad aragtaan waxyaalo dambena waad arki doontaan shirkaduna sidaas ay idinku mahad celinaysaa oo idinku shaqeynaysaa mar walba oo heegan idinku tahay arrimihiina inay idinka caawiso wixii idinka taagan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة إسقارسينتا جوليس تيليكوم Soomaaliya ayaa inta badan ka qayb qaadata xaaladaha abaaraha ee ka jira deegaamada gobolka Sanaag oo dhan iyo waliba markaasi meelaha qaba baahiyaha gaarka ah bulshadani ceelba gobolka Sanaagna waxay ugu baaqeen inay Joolis Telecom Soomaaliya ay markasta barbar taagnaato وأحمد عبد الله عيسى أحمد عاشور تلفزيون كعالمي Somali News TV دقمد ceelbo ee